بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. labada darisee la qoondeeyey siduu walaalku sheegay waxay ku saabsan yihiin ashubuhaat washahawaat, madmadowga dadka diinta laga geliyo iyo dariiqa xaqa ah, iyo shahawaati nafs, waxyaabaha naftu ay jeclaysato ee baadinimada keena. midna xagga caqiidadu galaa labadan shay, midna xagga acmaasha ayuu galaa inta badan. waxay culammadii hore odhan jireen labadani waa aslaa shari fi lwujuudi alinsaani bay dhahaan. sharka bini aadamkaba labadan baa u asala. waa laba xanuun oo ku dhaca qulubta qofka bini aadamka ah oo ka fogeeya ilaahay cabsidiisa, ilaa xad ay bacd alculamaa ku tilmaamaan afdalu nnaasi man lam tufsid ashahwa diinah walam tazil ashuhba yaqiinah. dadka waxa u fiican bay dhaheen ninkan diintiisa aanay shahwaatu nafsigu ka fasahaadin, ama yaqiintiisa iyo iimaankiisa aanay ka khalkhalgelin shubahaadka. ee aakhiro wuxuunbaa badbaadaya yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim. waddannada muslimka markii la joogay, marka shubahaadka laga waramo inta badan waxay ahaan jireen shubahaatu ahlilbidac. dadka bidcaadka ku dhacaa waxyaabaha qaldan ay ismoodsiiyaan inuu sax yahay ee ilaahay ku caabudaan. laakiin duulkiina halka jooga waxay inta badan iyagu la kulmaan waa shubahaatu ahlilkufr. waa madmadowga dadka laga gelinayo rumayntay diintooda rumaysan yihiin, hadday tahay arkaanuliimaankii iyo hadday sharaa'icda tahayba. ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rusushiisii iyo kutubtiisii iyo qiyaamaha iyo jiritaankiisa iyo ghaybka oo dhan. shubhadu marka fi luga waa aliltibaas waalikhtilaat, waa shaygoo dheehma, xaq iyo baadilku aad kala saari kari weydo, oo qofka maxaa xaq iyo maxaa baatila waxyaabaha u kala caddayn kari waaya. haddaba shubhadu inta badan aynu tilmaamayno ama aan rabno inaynu wax ka tilmaamno waa shubahaadka caqliga ee diiniga ee caqadiga ee qofka diintiisa ka xumeeya. waana xad hadduu shubhadaasi qofka galo waa marad. ilaahay uu qur-aanku inta badan munaafiqiinta iyo kafarada iyo ahlu shakiga iyo dadka noocaas iyaw kaga waramo fii quluubihim marad fazaadahum allahu marada. ilaahay ku tilmaamayo waama aladiina fii quluubihim marad fazaadathum rijsan ilaa rijsihim wamaatuu wahum kaafiruun. waa marad marka koowaad inta badan masaa'il fudud ku bilaabma, laakiin marka dambe diin la'aan dadka bada. marka dambe diin la'aan dadka bada. kama hadlaya in badan shubahaadkaasi iyo radintooda. waxaa laga yaabaa goobo aan tan masaajidda ahayn ama meelo kale in lagaga hadlo, laakiin waxaynu tilmaamaynaa feejignaanteeda iyo sida loo daweyn karo. oo asiiba dadkan waaweynee waayeelka wax iyaga la gudboon.
ubadkii iyo dadkii in looga feejignaado mashaakilka kan iyo siyaabihii loo daweyn lahaa. shubahaadka qaarkood waa taa'if min ashaytaan oo waxaa ku filan alisticaada. waa waxaan bini aadamka qalbigiisa degana khawaatirun ku soo dhacdaya oo inta badan qofku iskaga difaacayo sidii xadiidkii nebigu uu sheegayey inaad shaytaanka iska naartid. acuudu billaahi min ashaytaan alrajiim. shubahaadka qaarkoodna inta lagu celceliyo jawaanib badan laga keeno ayay degaan dadka badh. kuwaasi waxay u baahan yihiin fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun, in dadka aqoonta u leh waxa kan la weydiiyo. ilaahina subxaana wa tacaala kitaabka qur'aanka ah ma jirto iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam gaala shubha ay soo arooriso aanu ka jawaabaynin. ilaahay nabigiisi muxameda calayhi salaatu wasalaam ba wuxuu ku leeyahy walaa ya'tuunaka bimathalin ilaa ji'naaka bilxaqi wa axsana tafsiira. wax kastoo ay kuula yimaadaan waxaanu kuu keenaynaa baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala wax fardaamin kara oo xaq ah. kitaabkaasi ilaahay wuxuu ku tilmaamay wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaana likulli shay wahudan waraxmatan wabushra lilmuslimiin. kitaab baanu kuu soo dejinnay wax walba kuu caddaynaya baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala, wax walba caddaynaya oo hanuun iyo naxariis ay ugu sugan tahay dadka rumeeya. dhibteennu se waxay u badan tahay kitaabkaynu ghaafil kannay oo wixii wax daweynayay ayaynu moogannahay. waxaa laga yaabaa dadka intiisa badani inaanay akhriyi karinba. inta akhriyi kartaana inteeda badani inaanay fahmi karin. inta wax ka fahmi kartaana in badanoo ka midi waxay u baahnaayeen inaanay kala soo bixi karin, ka istinbaati karin. ayo inaad darajadaa gaadha waa masale dambe, laakiin waxay leenahay xaqiiqa ahaan wixii loo baahnaa isagay ku jiraan. rusushana hadduu kayla hadlayaan mulxid yaana ilaahay jiritaankiisa rumaysnayn iyo hadduu yahay ku ilaahyo badan rumaysan iyo hadduu yahay ku aakhiro inkiraya iyo hadduu yahay ku rususha inkiraya, qur-aankan baa la yidhi nebiga kula hadal calayhi salaatu wasalaam. lama odhanin meel kale daliil uga baadi doon, waayo rususha daliilo kale waxyigaasaa la soo siiyey. taa macnaheedu waxa weeyaan dadkan dhammaantood bikulli fi'atihim isku dar, hadday malaaxidayiin, hadday ilaahyo badan caabudayaan, hadday aakhiro dafirsan yihiin, hadday rususha dafirsan yihiin, hadday malaa'igta dafirsan yihiin, intaba ilaahay wuxuu kula hadlayaa qur'aanka kan. taa macnaheedu waxa weeyaan intaas oo mas'alo oo la tilmaamayo xujadii aad u baahnaydee dad lagu qancin kari lahaa waxay ku jirtaa qur'aanka kan. waxay ku jirtaa qur'aankan. laakiin dadka markaa diintoodana jahli kaga dhaco, isla markaana fitankana ay mucrad u yihiin, ay u banbaxaan meesha beledu taallana, siduu u badbaadayaa? su-aashu waa kaas. yacni waxaa laga yaabaa sayfid shal ciddii ku jirtay waddankiisii iska joogtay, dad isku wada diina oo caqiido qura wada rumaysan oo caynkani aqoon badan ba ayaanu lahayne bulshada uu iska dhex socdo inuu badbaadayo. laakiin markaad adiga iyo ubadkaaguba u soo banbaxdeen meel kale wada diina, bale diimaha dagaal ugula jiro, bale waxay yidhaahdaan trendka ugu badan hadda ee la filayo sanawaadkan inuu kor u socdaa waa 3 qadiyadood bay yidhaahdaan. waa atheism, qadiyadda diin laawanimada iyo ilaah ma jiradu kor bay uga socotaa
galbeedka qadiyadda shuduudka iyo ragga ku kaaftoomaya waxa la mid ah iyo faafinteeda iyo dhigisteeda iyo qaanuun samaynteedu kor bay u socotaa qadiyadda mukhaadaraadka iyo taqniinkeedu in la qaanuuneeyo stabiskeedii baa bilaabay iyana kor bay u socotaa waxaan filayaa waqti aan sii fogeyn inay mukhadaraadku la noqon doonaan sida khamriga iyo sigaarka iyo kuwa dushun lagaga qori doono waa khatare naftaada ka ilaaliya waa lagu dhintaa iyo waxaa inta dusha lagaga qoro in la odhan doono xorriyadda dadka iyo xuquuqdooday ka mid tahay oo ay dadku iibsan doonaan saddexdaasiba xog bay uga socdaan galbeedka saddexdanina waxay ku saabsan yihiin labada masale aynu tilmaamayno darsigeennan iyo ka dambeeya saddexdaba dawadoodu ilaahay kitaabkiisay ku jirtaa laakiin innaga markaa waxaa ku kulmaya dadka kan jahlun biddiin oo ah qofkani wuxuu diin u haystaa xoogaagii uu maqmaqli jiray reerahooda uu ka soo maqlay berigii uu waddanka joogay wixii uu meelaha ka maqmaqlay wax sax iyo wax qaldanba laakiin meel la taqniiniyey oo la nidaamiyey kufriga iyo sida loo dhigayo la taqniiniyey xumaha iyo sida loo sharxayo wax walba xorriyad iyo xuquuq laga dhigay oo qaab xorriyad bini aadam iyo xuquuq bini aadam ah loo soo bandhigayo oo shubahaadkaasi tiro badan ayaan iyo si laysaga celin lahaa waa adagtay qofka ahlu cilmiga waa laga yaabaa masaa'ilka qaarkood inay mugdi ka galaan hore u garan kari waayo laakiin dee masalaad kun daliil u haysata xataa haddaad hal masale ka garan kari weydo wax badan qofka kuma samaysa saa ogeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah waalraasikhuuna fi lcilmi yaquuluun aamanaa bihi kullu min cindi rabbina kuwa raasikhay baa ilaahay yidhi iyagu wixii masaa'ile xagga alle ka yimi way tasliimaynaya xataa hadduu masalada hore u garan kari waayo waayo dee masaladaad kun adilla haysato hal shubho loogama tago haddaba hadda waxaa badan nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii uu tilmaamayey xudayfata bnulyamaan saxaabiga la yidhaahdaa wuxuu yidhi dadku nebiga khayrkay weydiin jireen aniguna sharkaan weydiin jiray buu yidhi anigoo ka cabsi qabo sharkaasi inuu soo gaadho dabeetana khayr baanu hadda haysanaa khayr ma ka dambayn doona shar ma ka dambayn doona haabuu nebigu yidhi khayr ma ka dambayn doona khayr baa ka dambe fiihi da wuu soo waday nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu markii dambe ku yidhi waxaasoo dhan waxaa kasii dambayn doona ducaatun calaa abwaabi jahannam man ajaabahum ilayha qadafuuh duul jahannamo dadka ugu yeedhaya maalan ilxaadka oo kale taariikhda dheer oo bini aadamku ka mid yahay oo qaybo falaasifada ka mid oo mulxidiini way jiri jireen laakiin mulxidku kuwa aan ilaahay rumaysanayn maxay siday u noolaayeen filosofkii holandiis miyuu ahaa sbanuza la odhan jiray ayaa wuxuu leeyahay cala almulxid assumtu walictizaal buu yidhi assumtu walcuzla waxay ahaan jirtay buu yidhi qofku markuu shakigu galo ee waxa kan uu ku dhacaan inuu iska aamuso oo keli iska noqdo nolosha ka qanco oo waxa kan waayo qofkaasi tuunal madow buu galay tanal madow noloshoo dhan baa mugdi noqonaysa sababta waa maxay qofkani wuxuu garan waayayaa waayo amaa hiyar maxaanu noolay maxaan halka ka qabanaya maxaan ka shaqaynaya xagaan ku socdaa xagaan ka imi noloshu maxay tahay therefore wuxuu ka baxayaa noloshoo dhan wuxuu arkayaa meaningless alxayaa kullaha waxaan qiimo lahayn buu u arkayaa noloshoo dhami dhadhan yeelan mayso inaad adigu tidhahdo ilmuhu muxuu wax u baran waaya muxuu shaqtay mise arkaba inay qiimo leedayba wuxuu arkaa inuu dhintaa inay ka roontay inuu noolaado waayo wuxuu rumaysan yahay kadeedkeedaabaad ka raysan lahayd haday kaa baxdo noloshan warwarkeeda iyo fikirkeeda iyo kadeedkeeda waa laga yaabaa inaad la yaabtaan lakin waxaa laga yaaba kuwa yarara gurigiina jooga haddaad weydiiso inuu ku leeyahay intaasoo goorma isku dayo is yidhi ku fakeri ma isdishaa
ma istishaabaan ku fekeray kuwa waaweyne profesorada ayaa kuwan baa saa u fekera haddaba hadday waagaa hore ahayd waxyaabo qof intuu shakigu ku dhaco uu meel cidlaa iska fadhiisto ama isagoo isku mashquula ama istila ama saa imka waxay noqotay meel ducaad preachers dad baaba faafinayo ku dhawaaqayo oo xuquuq ka dhigayo oo le biniaadamku xaq buu leeyahay inuu diimaha ka tago biniaadamku xaq buu leeyahay inuu shudu sameeyo biniaadamku xaq buu leeyahay xorriyaad iyo xuquuq iyo kan iyo lawyers iyo qawaaniin iyo dowlado iyo mujtamacaad dhan oo xumaha guide garaynaya oo ilaalinaya oo dhigaya ugu horeyn ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamay horta inaynu ilaahay barino ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنه إلهي ويديسنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إلهي أنت نهانون سكدب قلوب تيدا هويعنين كوا أنبضة هنقدقين شبهاتك هالدباء لو قرب يدتك وحيالان قلة العلم أو ضعف البصيرة بين هذا أقون درو إلهي وحي قيس له أقون درني إيا أركت حمو نالوش هاللغو أركت حمي هاي أما بصيرة دا قفكو يتدبر كيسو الليتو ويا إلهي وحكستو الدين تيسا خلافة وحكو المامية إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس إن يتبعون إلا الظن وملأ وحا الراعي أنبا إليه والشبهات ووحي سموتسيين حقيقة ما جرته إيا وما تهوى الأنفس وحي نفط دونطي إن نفط الله سيو freedom إنه وحي دونت سمين كرته qofku wuxuu doono inuu tijaabin karo cabbi karo fuuli karo wuxuu doono inuu samayn karo ilaahay wuxuu ku tilmaamay markaa dadka waxyiga diidani waxa ay rabaan waa labadan uun waa dadka madowga ku sugan ay professor weydii mulxida what is the meaning of life day noloshu maxay macna leedahay waa maxay macnaha noloshu maxaad u nooshay waa no answer cid ka jawaabi kartaa ma jirto waayo allihii bini aadamkana abuuray baa ka jawaabi kara un waxa loo abuuray gaadhigaa ninkii sameeyuunbaa kuu sheegi kara waxa loogu talagalay shay kasta ciddii samaysuunbaa taqaanaa laakiin shayga la sameeyey isagu ma yaqaano wuxuu u joogo therefore markay waxyiga ilaahay diidaan waxay ku soo noqdaan uun mas'ale ah lama garanayo jawaab lama hayo ma la rajaynayaa in jawaab la helo maya iyana ma jirto waayo wuxuu hadduu maadadan hor taalle laabka la geliye la wadwado hadduu dhaafo waxaa ka dambeeya jawaab ma leh cidda ka jawaabi kartaan waa alle subxaanahu wa tacaala sida ogeed baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa walaa tattabici alhawa fayudilaka can sabiili illah ina aladiina yadiluuna can sabiili illahi lahum cadaabun shadiid بما نسوا يوم الحساب waxay ugu sii daran tahay lumista caynkaasi iyo marka haddana inta la qurxiyo magac kale la saaro bini aadamku bay yidhaahdaan abuurkiisa waxaa ka mida bini aadamka oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku abuuray ayan kaan ha ahaadee xumaha inay naftu diiddo إلا أحد النبي يقول يا الإثم ما حاك في النفس إني نفت ديدو سيدا وجد بني آدم كو يسقر ربعين حمان الصماية ما يده هذا حمان صماينا ياي جس مقع قلوب بحياه سو يسوق نعيو مثلا الدولة ده هني مركي دولة دي روم مسكينة ده وحبا يسن لقو دوليو ما يده هذا انتهى الدولة ده يربانو أفك السوتش بيننا أما لما يده هذا الشدال كده ربنا ينو سوق هذا أما ينو صوب بابنو
waxa la yidhaahdaa shacabka xorriyadda la siinaya iyo dictator ba magac kala loo bixiyaa wuxuu isku qancin karo qofkiyo waa aqbali karaa lagu tilmaamaa xumaha marka la tilmaamayo la odhan maayo waa xumo waa xorriyad iyo waa xuquuq iyo erayo kaloo bini aadamku uu jecel iyo agtiisa qiimo ka samaynaya ayaa dheeha kalaa la saaraa si awgeed baa ilaahay wuxuu leeyahy afaman zuyina lahu suu'u camalihi afaman zuyina lahu suu'u camalihi fara'ahu xasana faina allaha yudilu man yashaa wayahdi man yashaa ilahay wuxuu tilmaamaya ma mid loo qurxiyey camalkiisii xumaa oo u arkay inuu wax fiican yahay camalkiisii xumaaba loo qurxiyey markaasuu mooday wax fiican inuu yahay kaa iyo dee ninka xaqa arkaya may siman yihin ilaahay baa faina allaha yudilu man yashaa wayahdi man yashaa idan ayuha alaxiba maanta dunidana ku nooshihiin inkastoo laga yaabo dhul fog oo aydan filanayninba in qurunkani gaadhay waayo dunidu badkan mubaashirka iyo tv-gan iyo netkan iyo waxaan isku xidhan dunidii waxay ka dhigtay maxay meel isu furan waxay idhahdaan taariikhdii hore bini aadamku cadowgiisa dagaalkaasuu isaga ilaaliyo qalcad buu samaysan jiray bay yidhahdaan qalcada iyo suur dabeetana inta gudooda la galo dee ninkan faraska watiyo seefka watiyo leebka watiyo wax wata aanu ku soo gaadhaynin xadaaradda waxay gaadhay bay yidhaahdeen hubkii la samaystay qalcadda in la dumin karo ama madfaca noqoto ama dayuuraddan iyo waxna noqoto marka ma jiro nin meel isku qarin karaa oo oodan karaa waxay markii hore ta kale afkaarta iyo waxaasina cidda meel haddaad tidhahda ha iga soo gelinoo xad aad ka samaysato xuduud yeelato oo aad u diiddo dadkaasi inaanay fiisa la-aan meeshaada ku imanin waxay ahayd maca afkaartiisa inuu kaa joogo maxay halkaa uu kaa joogay technologiga cusub wuxuu sameeyey inaan ninnaba meel wuxuu ku qarsan karin ninnaba marka gurigii aad adigu dhisatay carruurta iyo islaanta ku xaraysataa laga dabagalay iyadoo aan cidina adiga fasax ku weydiisanin dabeetana waxay u baahdaan oo dhan meesha gudaheeda bahalka yarow gacanta ku sito ayuu ugu jiraa marka meel badan oo lagu dhuuntaa ma jirto laakiin wax waliba xal bay leeyihin waxa uu dadku u baahan yahay waxa weeyaan mushkiladdii waa tanoo waa aragnaaye xalkeedu muxuu yihi ma inaynu isdhiibnaaba xalkeedu qur-aanka ilaahay wuxuu tilmaamaya wajacalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lama sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun waxay dhahaan labadan mas'ale aayaddana ay sheegtay labadan xanuun aynu sheegnay waa dawadooda الشبهات والشهوات شهوات نفسنا الصبر أي الودة ويا بيد هذا وعن المعصية هي ملذات كذا لك الصبر عبادة لك الصبر الصبر بقى الودة ويا بيد هذا تنك لنا يقين بقى الودة ويا يقين تؤدي لك كل صبر عقيدة الودة ويا وإن شبهة تنقف كقلبك سلك صاره marka cilaajka naafica ahi inta aynan shubahaadka xabad uga hadal aan la odhanin ilxaadka maxaynu ka nidhahnaa kaa maxaynu ka nidhahnaa kaa maxaynu ka nidhahnaa kaa maxay intaanad waxaa ka odhanin waxaa ka horeeya asaaska inaad binayso asaaska inaad binaysaaba ka horeysa oo ah dadkanaynu dhalle iyo ummadeenna iyo nafteennaba inaynu iqaamatulxuja cala annaas samayno inaynu marka hore dadka diinta caqiidadooda dhisno intaynay shubahaad ka reebin qofku hadduu caqiidadiisu si fiican u dhisanto shubhada wuu iska celin karaa laakiin haddaan usuushaba dadkan la barin shubahaadkana loo bandhigo waxaad rajaynaysaa muxuu noqonayaa marka ilahay qur-aanka wuxuu leeyahy faclam annahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidambik وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم بربا إلهي لي يقرأ
أنه لا إله إلا الله أقوم بي أباهنت إذا وحلنا أغهرين شيء كواد وإقامة الحجة على الناس وضدك أصول العقيدة إن نوردقنا أصول العقيدة إن نوردقنا هدانا دوردقين وأدكت صدح ذا وحان شيء مدنا بينت كعلسو والله يا صدح ذا بين هذا تقول نعبتي إن الماء ملح نقضين أطربين إنه شوات كبيرين أطربين إنه دروغستي نوع نقضين أطربين لكن كاسي واحد شيء يسي واحد سمين سامت المامية واحد سمين يسي كواد علاج هي وحوية هي إن عقيدة الصحة إنه مركه هردت كبر عقيدة الصحة وإلهي كتاب كيسا أدلة كفلا هديت أدلة جريتان كصابسا هديت أدلة كصابسا صدق النبوة هديت أدلة كصابسا قيامها أدلة دوبهي هدي وحلا لي وحي إنه مسألة كورمينا ما غيبها ما شاهدات وحي دون تبع النقطة أدلة ده وعقلية انت إن شرعي وتجين وهي قرآن كندتك اللي يقولها اللي ما بيرو ما يسنين مركه هوري نبي محمد قالوا يمي سو قال ما يهدتكم دبتنا القرآن بس يدو يصدا كنا بالا لها قال كان القرآن ما يسوقان أفر ما يسنين بالا وحلة المامي مسائل كان هنا اللوتشكيين وعقل يسجليان هنا كنا دعينيان إلهي جريتان كيسي الرسول كالرسول نمديسة يا آخر جريتان كذا بقى سو قال اللي يقولها اللي إنه وحين وهي سنة القرآن كان ينتك مؤمنين تعالوا يقولها الله قال كم حلو يقولها الله يا مركها ما دا wax kale keenaya ilaahay nabi maxay quraankan buu dhibay yiri ku dheh qol meedana ku taala ku dheh oo saaw sheeg haday saa ku yiraahdaan saa ku dheh shubahaadkooda ilaahay quraanka tirinaya saasay yiraahdeen ee saa dhaba ilaahay leey saasay waxay shubha yiraahdeen quraanka dhexdiisa ka helaysa oo ilaahay ka jawaabayo subhanahu wa ta'ala idan waxaan leenahay aqiidadan wixii lagu dhisi lahaa قال يا مسلم بالله أقول رسالة هلا أقول شيء لها هذا قف ربطين الدين وشيخته وحوفي عن أدولي بتوا كتاب كقرآن ده اللغة العربية قرنين بل على الأقل كتاب تفسيره أفكي سكو قرآن إن أدولي بتوا أحسن شيء أما بروفيسور هذا أما وحد دورة هذا أما نقل يراكو تخصص أما وحد دورة كو تخصص إلهي قف كان أبو ريكن بو سودتشي laguma odhan adigu caqligaaga wax uga daydayo adigu wax ku dhehdhe cidna kuma odhanin laakiin waxaynu u baahanahay inaynu kitaabkan fahamno marka maadaama isaga loogu talagalay gaal iyo muslimba in lagula hadlo wax loogu sheego wixii aadam dhalay in lagula hadlo iyo wixii jimba ka tirsanaa kitaabkan waxaynu u baahanahay asalka ah inaynu dadka u dhigno isagaynu ka helaynaa mas'alo kastoo layna weydiiyey jawaabteeda لكن waxay ku xidhantay mada fahmina inta aynu ka garanayna ku xidhantay jawaabta saynu kala soo baxayna aqoonteenu inta ay gaarsiisantay aynu kitaabka u leenahay kaasi waa qodob koowaad aan tilmaamayo diinta inaynu dadka barro waa xujadii nabi maxamed loo soo dhiibay ee ku oogno xataa kaan rumaynaynin inaynu xujada ku oogno waayo quraanku wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay aakhira anbiya inay imanaysaa cidiba la socon ama mid la socdo ama laba la socdaan maxaynu odhanaynaa ambiyadaasi may guulaysanin miya maya ambiyadu shaqadii loo diray way qabteen oo waa maxay shaqada loo diray shaqada loo diray waa dhowr mid uun inay noqoto inay xujada markay dadka u sheegaan inay dadku rumeeyaan kuwa waxa la yiri taskiyatu nafsiya tacliim buu sameeya inay tababaraan oo naftooda tahiraan oo waxyiga baraan oo diinta baraan oo kuwa kalena waa iqaamatu alxujjati calayhim aakhirina inay cudur daar helin oo nabiga kan shaqadii loo soo diray haday raaci waayaan xujadu ku oogay aakhirana cudur daar ilaahay kama helayaan subhanahu wa ta'ala oo wuxuu nabigu quraanka ilaahay wuxuu ku tilmaamaya عدنا إنانو عذاب وما كنا معذبين حتى نبعث رسول ما عذابنا عدنا إنان رسول صدر الرسول كان هداني الربينين محل فرعون إلهي ووغا إنان الربينين محل هو صدر مسين حجدك ووغا فرعون آخرين إنان أوراني وحباني قيمة سو قادين يو وحبا قرن مايين أنا أوران إذن حجده إنان أوغنا ودادك الدين تبرنا لابد ميدون بينغن أما هو إسلامي الدين تيقادا
أما آخر عذر دار وايو إلهي سبحانه وتعالى اكتسان عذر دار كهلينين كوينو دالينا واللمد يكوينو الله دقان يكوينو وضا نودمي إنه حجدا كو أغنو دادك الدين تا وضا برو هديك لا إناقا دي دنبابينا nimankii reer banu israa'iil ee magaalada deganaaye laga mamnuucay sabtada inay warsadaan markii lagu yidhi war maxaa wax ugu sheegaysaan maxay yidhaahdeen macdiratan ilaa rabbikum walacallahum yattaqun ilaahay inaanu cudurdaar ka helo xujadii inaanu ku ognay inaanu caddayno iyo haddii dee qalbigooda diini galayso inay ilaahay ka cabsadaan subxaanahu wa tacaala idan waxay leenahay asalku waa inaynu dadka diintan iyo qur'aanka kan u sharaxnaa u sheegnaa gaadhsiinaa ku gaala iyo ku muslima iyo ku kastaba waa inaynu isaga ku tasallux waa inaynu isaga hub ka dhigannaa oo uu noqdaa wuxuu uu sheegayaa wixii aynu sax ku garan lahayn inta xanuunku ku dhacday saynu u gallaa kow waxaa leenahay dhallinyaradan wareertay ee afkaarta qaldane tirada badan le laga dhaadhiciyey waxay u baahan yihiin cid la niqaashtanta ee in lasii durkiyo uma baahna inaynu intaynu ceebayno erino oo fogeyno maaha laakiin laa takunuu cawnan lishaytaani calaa akhiikum xadiidkii imaamu axmed soo saariyo qolyo kaleba inkastoo sanadka culammadu ay daciifiyaan laakiin shacayb alarnaawuuti duruqdiisa intuu wax isu gegeeyaa buu taxsiininayaa ninkii gacanta la jaray ee uu nebigu ka yara murugooday say sheegayaan kaannaka karihta qaطcahu bay yidhaah ilahay rasuulka malaa gacan goyntiisa kan waad nacday wamaa yamnacuni buu yidhi laa takunuu cawnan lishaytaani calaa akhiikum ama xadiidkii kii khamriga cabay ee markii dhowr jeer la keenay ee dhowr goor markii dambe ay qaar lacnadeen oo maageen oo ku lahaa innahu yuxibu allaha warasuulah waar ilaahay ha ugu kaalmaynina shaydaan buu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam qodobka labaad waxaan leenahay itaaxatu alfursa lishabaabi an yubdi kula maa cindah inaynu ka waran siino oo fursad siino bal ninkan waxa madaxiisa ka guuxaya o dhan inu soo bandhigo waxba inaanu la khajilin hadduu markuu erayku yidhahda afka kaga boodo dee wixiisii wuu la aamusin laakiin way ku duugan yihin waxba kamaa daweynin waa ku duugan yihin weliba waxay u badantay inay ku sii badato uun cid dambena aanu wax weydiinin bale gruubkii iyagu negatifeka u sharxayay inuu ku sii xidhmo unu ay shubahaadka ku sii badiyaan cid shubhadan ka saartana aanu haysanin sida awgeed nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam gaal baa u yimi ay carabi u soo dirtay waa gaal loo soo diray inuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam diinta ka saaro aduu ka fiirso cutba bnu rabiica abalwaliid waxaa loo soo diray inuu nebi maxamed diinta ka saaro dabeetana nebiga intuu yimi proposals buu la yimi niyow haddaad waxaan doonayso waxaasaanu ku siinaynaa haddaad kan doonayso kaasaanu kaa dhigaynaa haddaad kan doonayso laakiin dee ilaahiyadadayadan iyo waxaad warkan aad ka sheegaysaa dhaaf marka wuxuu wadaa in compromise diinta laga galo laga heshiiyo oo isaga iyo nimankii quraysheed negotiation ay wada galaan oo nebigana la siiyo wixii uu baahan karo haddaad boqor doonayso boqor baa laga dhigayaa haddaad xoolo ku doonayso waxa kan annagaa ninka ugu xoolo badan kaa dhigayna haddaad gabdho doonayso inanta ugu fiican baa lagu guurinaya yacni wixii maadiya aad rabto ee nolosha ku saabsan you will get it laakiin waxaan u baahannahay uun dee inaynu masaa'ilkan ka wada hadallo aad ilaahiyada iyo baabkan cayda ka dayso nebigu waxaa iyadoo loo akrinaya u dhegaysanayay kuma odhanin war bal waxaa gaalkii wuxuu ku hadlaya day gaalnimadaasaad ila timi kuma odhanin ee wuu dhegaystay markuu dhegaystay uu ninkani warkiisii gaalnimada ha dhammaystay nebigu uma jawaabin markiiba wuxuu ku yidhi afaraqta yaa abalwaliid warkii ma dhammaysatay weli mise waxbaa kugu hadhay buu leeyahy yani isagu weli rabaa inuu jaan siiyo afaraqta yaa abalwaliid warkii ma kaa soo wareegay buu leeyahy hadalkii ma ka baxday ma dhammaysato markaasuu yidhi haa markaasuu nebigu aayad qur'aana ku akhriyay
suurad suwarka makiga qaybteeda hore ka mid ah ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku akhriyey. suuraddii markii uu dhegaystay ayuu nin carbeedo afkana garanayaba hay uu isbedelay. dabeetana nimankii carbeed markuu noqday waxay dhaheen wallaahi rabiica ibnu cutbata bnu rabiica sidii uu inagaga tegey si aan ahayn buu la soo noqday bay dhaheen. ninkii aynu diray warka aynu ku diray ma aha. maxaan qisadan uga dan leeyay? qisada imaam alalbani wuu taxsiiniyaa fii siiratihi. waxaan leenahay waxa weeyaan qofkan inaynu dhegaysano bal horta waa ibtilaysan yihi, dhib baa haysataa, laakiin mashkilaadkiisa kan iyo waxaan madaxiisa ka guuxay iyo waxaanu ismoodsiiyey ama waxaan loo akhriyay inaynu ka dhegaysano. waa mid labaada inaynu ogaanana xiwaarku dee qur-aanka ilahay wuxuu inoogu sheegay ambiya xataa ilaahay wax weydiisanaysa. waid qaala ibraahiimu, muxuu nebi ibraahim yidhi, rabbi arinii kayfa tuxyi lmowta, ilaah waxaad i tustaa dadkan dhinta bal sidaad u soo noolaynayso. ama nebi muuse inuu yidhahdo ilaah waxaan rabaa inaan ku arko. idan su-aashu waxay doonta ha ahaato, waxaynu u baahannahay dadkan inaynu dhegaysanno. oo qur-aanka ilaahay wuxuu inooga warramayaa gaalo badan oo xiwaar lala sameeyey. qaar wax diidanaabaa ilaahay wuxuu yihi qul waxaad ku tidhaahdaa ara'aytum maa tadcuuna min duuni illaahi arunii maada khalaquu min alard am lahum shirkun fi الsamaawaat iituunii bikitaabin min qabli hada aw athaaratin min cilm in kuntum saadiqiin. ilahay wuxuu leeyahy waxaad ku tidhaahdaa war bal waxaan aad baryaysaan ee cibaadada ula imanaysaan itusiya dhulkan waxay ka abuureen. maada khalaquu min alard am lahum shirkun fi الsamaawaat, kownkan dhana sidan u dhisan ma qayb bay leeyihin, ma shuraka ilaahay ku leeyihin. iituunii bikitaabin min qablu hada, kitaab hore waxaan ka warramayo sidan ku doodaysaan sheegaya hadduu jiro keena, aw athaaratin min cilmi, ama raad aqoomeed oo waxaa sheegaya hadduu jiro keena. yani islaamku cilmi ma diidana, laakiin ilxaadku cilmi maaha, waa shubahaad la isu geegeeyey. saasi awgeed baa ilaahay wuxuu tilmaamayaa xiwaar in lala galo kuwa waxa kana aaminsan. ilmahaaga ama ka kugu dhow ama kan xanuunadani ku dhaceen markaad ka dhegaysato wuxuu u baahan yahay inaad maagina haddaad adigu aqoontaa leedayna inaad u jawaabto, haddaanad aqoontaa lahaynna inaad u baadi doonto tabiib kaloo daweeya. ilmaaga xanuun caadi markuu ku dhaco de haddaad anigu dhakhtar ahayn oo daweyn karan in dhakhtarba la raadisaa soo maaha. yaa dhakhtarkee fiican baad tidhaahdaa iyo takhasus wadneed yaale iyo waad waraysi tagtaa adigoo raba ilmaha inaad jiradan ka daweyso. fakadalik tanna waa jiro kale uun, jiro kaloo ku dhacday adigoon waxba war waxay ahayd inaad u raadiso tabiib kaloo daweeya, tabiib alquluub dadka ah ee shubahaadka qalbiga bini aadamka gala daweeya inaad u raadiso. weliba waxa fiican xiwaarkaasi inuu kitmaan ku dhaco. waxay jecel yihiin inta badan inaan la ogaanin inay waxay rumaysan yihiin, waayo cultural pressure baa jira oo inanka caadade reerkoodii cadaaba walba waxaa rumaysnaa markaa waxa kan iska qiranaya waxba uma arko. inaga waxaa jira cultural pressureku wax jira oo nabigu calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimi wuxuu yidhi jaarkaygii baan khaatiga taaganay. jaar aad u xun buu lahaa. nabigu wuxuu ku yidhi alaabtaada intaad qaadato, alaabtaadii guriga intaad ka saarto waddada dhig. ninkii sidii nebigu yeelay buu sidii nebigu amray buu aqbalay. alaabtiisii intuu soo qaatay ayuu waddada dhigtay. dadkii baa soo mara, war maxaa kugu dhacay baa la yidhaahdaa. jaarkaygaa dhib batayoo dee gurigaygii baan uga imi. inkaar alle kugu ridbay dadkii oo dhan bay yidhahaan waa maagaan, muxuu ahaa ninkan saanu dadka u galay. ninkii jaarkahabaa markii dambe u tago wuxuu yidhi waryaha dib kuu dhibi maaye soo haraysa alaabtaada wax dambe kuga. yacni ninkan brasharkii mujtamaca bedelay, mujtamaca cadaadiskiisii ayaa bedelay. saa daraaddeed ilmahani cultural pressureka haysta buu wuxuu ka cabsi qabaa inuu sheegan kari waayo waxaan, laakiin wuu rumaysan iyo wuu qarsanaya.
rumaysan yahay oo uu qarsanaya hadday daragtay wuu cabbayaa hadday qurunqadhaadhkan tahay wuu samaynayaa hadday tahay caqiidada tan laakiin wuu qarsanayaa walidaalika waxaa habboon bay yidhaahdaan ragga masaa'ilka khubarada ku ahay in xataa haddaad u geyso cid waxa khabiir ku ah inay labadoodun u dhex ahaato aanad sheegin inaad u dayso isaga iyo tabiibkiisaasi waayo lagama yaabo de intaad maalin u geyso inuu fuxuu ku yidhaahdo dabeetana u kaco maaha suurtagal waa adagtay qofka kani shubahaadkani waa ku biireen marka wuxuu u baahan yahay muddo in xiwaar u furmo labadooda tan oo masaa'il badan maalinba mid laga doodo oo maalinba mid oo waxaa laga yaabaa bila inay qaadato laakiin bila kadib inuu qancin karo waana tajribe aan aragnay rag u dhuun daloola masaa'ilkaasiyo culamo ahi dad badan oo ay diinta ku soo celiyeen oo loo keenay calaa hada alasaas bay ku daweeyeen inay uun labadooda dooda u dhexayso aan cid kaleba ogaanin siday u wadeenna ay markii dambe qanciyeen waxaan ku soo koobaya markaa ilaahay qur-aanka wuxuu inagu leeyahy wawxiya ilaya hada alqur'aanu liundirakum bihi waman balag nabi maxamed baa waxa la yidhi waxaad tidhahdaa wuxiya ilaya hada alqur'aan liundirakum bihi waman balag qur-aankan baa laysoo waxyooday si aan ugu digo idinka iyo ciddii uu gaadhayaba ilaahay wuxuu leey wain axadun min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah gaaladii la istilay mid gaalada ka mid ah hadduu magangelyo idin weydiisto magangeliya ilaa iyo intuu ka maqlaya ilaahay warkiisa baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala uma abliquu ma'mana ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya lam yakun aladiina kafaruu min ahli alkitaabi waalmushrikiina munfakiina xataa ta'tiyahum albayina rasuulu min allah yatluu suxufan mutahara fiiha kutubun qayima may ahayn may noqdeen nimanka gaaleed iyo kuwa ahlu kitaabkuba inay qalloocooda iyo diin xumadooda ka baxaan may suurto gasheen ilaa iyo uu timi maxay bayinada cad waa maxay rasuulun min allahi yatluu suxufan mutahara rasuul xagga alle ka yimi oo ku dul akhrinaya suxuf mutahara fiiha kutubun qayima baa ilaah yidhi subxaana wa tacaala waxaan rabaa inaan soo koobo waxaan ku soo koobaya wuxuu yahay shubahaadkan ma rabo inaan masaajidka kaga dhex hadlo shubahehebla waxaasay daliishadaan iyo waxaasaa lagu ridiyaa iyo kan dadka wuxuu u baahan dee kutubtay ku qorantay iyo meelahay ku taalla iyo qur-aanka say u isticmaali lahayn baynu tilmaamaynaa laakiin waxaan rabnaa inaanu sheegna waxa weeyaan war meesha tan shubahaadkaasi waa tiro badan yihiin iyagoo weliba systematic ah oo schoolinka ka bilaabma ilaa iyo jaamacadda uu qofkaasi bii'ada waxaasiya uu ku dhex jirayo ilmahaas idinku dee masaajidka iyo maqaaxidii lagu murmayay iyo intan baa idinku tagtaan gaal kiina ugu badanee laba ula shaqeeya buu arkaa laakiin dadkan yaryar waa isku milmeen meelahan ay wax ku dhiganayeen iyo meesha inay la joogaan dhibtaasaa haysata shubahaadkaasna waxaynu leenahay waxay dhibeen dadkii aan loo dhigin caqiidadii diimeed oo marka hore aynu moodaynay dadku sidaa ay inoogu midab eegyihiin un inay ugu caqiide ekaan doonaan oo marka hore inaan xil badan iska saarine xilka ugu badan aynu iska saarray inuu noqdo qur-aanka sida loo akhriyo inaynu wax ka barro jisca muu akhriyi karaa tabaarak buu akhriyi karaa sida loo akhriyo inaynu wax ka barro sida loo akhriyo waxaa ka sii muhiimsan sida loo fahmo marka waxaan ku soo koobayaa darskeenna kan dhibtaasi waa jirtaa ubadkiina way haysataa waa mid ku fidmoobay iyo mid qarka u saaran inta badbaadisa beersantkeedu waa beersanti yar taariikhda bini aadamkee soo jireenkana waxay tilmaamaysaa dadka aan iyagu wadanin manahij wax bedasho dadka kale aan bedelaynin
ugu badnaan inay 3 qarni 3 jiil inay ku bedelmaan dad adugu de sidii saxaabadii nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam dad dacwo iyo diin wado iyagu dadka bedelaya yihiin oo manhaj sito iyagu wax dhigaya kuwaasi waa group kale laakiin dadkan kale iska hijrooday kolba meel iska daga 3 jiil bay sii noolaadaan jiilka saddexaad dadku ka mid yihiin aduu ka dhashay isagoo yar khafiifa oo afkiina midhadh ka garanaya waxoogaa cilmi dhegdhegood yarna diinta ka maqmaqlay kaasi ku sii dhala qiyaas muxuu noqonayaa meeshaasii jooga kaasi ka saddexaad u dhala xaguu noqonayaa practicalina waa la hayaa eeg muslimiintii dagaalkii koowaad ee dunida tagtay latin america waxaa ka tegey muslimiin aad u tiro badan oo weliba shaam ka tegay dhulkan la yidhaahdo atrak baa looga yaqaanaa xaggaa markay tageen waayo baasaboorkii cuthmaaniyiinta ay siteen oo inay turkiyiin baa loo haystaa laakiin waa carab marka laga eego xagga dhaqaalaha iyo waxaa iyo madaxnimada iyo waa madax waa kuwii wadanadan latin america raggii xukumayey carlos mancim iyo hebel yani raggii xukumayey marka xagga lacagta laga eegana waa tujaarta ugu waaweyn laakiin xagga diinta marka laga eego way tirtirmeen xataa masaajidu california imika masaajidadan ku yaala qaar ka mid a masaajidii waagaa hore muslimiinta hore tagtay ay dhisteen qaar ba hadda barking ah masaajid 7 dabaqaa jiro hadda barking ah waa barkinga wadhida lagu xareeyo xagga sarana calaamadihii muslimka ee kursiga waxbaa ku qoran barkinga markaad halkaa kaga soo socoto waxaa suran calaamadaa suran islaamiyo tilmaamaya kuway sii dhaleen unba iibsaday masaajidkiina ila iyagu masaajid ba ma rumaysanayn daarun awowyadoodii hore ka tegeen bay hayde waxaan uga dan leeyahay haddii la waayo waxaan cid iska xil saarta oo wax bedasha oo wax dhigta oo dadkana ilaalisa haddii la waayo 3 gruubaan imka idiin sheegaya unbay ka mid noqon doonaan 3 gruube trendka ah aan leenahay waa trendiska socda ayay ka mid noqon doonaan in ilaahay dafirta in qoomamka aan la garanayn ku biirta in daraga iyo waxa ka shaqeysan noocaas uma wakaan doonaan waxa quray ku badbaadi karaan dadkaynu u niminaynu ku badbaadin karnaa waa inaynu diintan sheegno inana isu sheegno kuwan aynu u nimina aynu u sheegno oo ilaahay kitaabkiisa dadka ugu yeedhno wax kastoo xanuun oo jirana ilaahay quraanka wuxuu ku yidhi qul huwa liladiina aamanuu hudan wa shifaa وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قرآن كاسي وحوية هي دتك مؤمنين هدى وشفاء شفاء لما في الصدور لابتا وحا حنون قال أردن مدوية ويان قرآن بان سودة النبي إلهي إلهي عافمات وحلقا عافمات أنا عقوش هي قلوبتا وقفي عن haddaad labadaa ka waalato waxba nolosha kale ma tarto dhadhan male nolosha kale dad balaayin haysata dhadhan male noloshu waxay dhadhan leedahay markaad labadaa ka nooshahay khitaaman lidars dhibtaasaa jirta dawadiina ilaahay kitaabkiisay ku jirtaa labadaa wax baynu u baahanno taxsiin inaynu samayno marka hore badbaadinno intaanay waxaas ku dhicin iyo marka labaad oo ah cilaaj fiican inaynu samayno sala allahu calaa muxamedin wala alihi wasaxbihi wasalam بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد أنت كدب وحان لنا مركو جهر رئيس إلهي سبحانه وتعالى ميزان حسنات كيس هيا الشيخ مصطفى محاضرة آديات كقيم كوهيد وحين هاي سنة إلا دور دقيقة لو 3 دقيقة إن شاء الله تعالى وح سؤال وموضوع كساب سن وموضوع الشيخ المكونات المامي عد هاي ساء مجرتا إن شاء الله تعالى لو دقيقة ما شاء الله حق الدنباء حاج علي
هندي ما شاء الله. هيا ما دام تذكر الديار واحد أرمي يكون كتير أبو هذا هل كان بقى فوكس بالتالي هذا وضع كوي لو ضامر يا بدر ما كان مال قبل جميل كنا بوين دور على هذه الجلد بتاعي ده وضع كتير ده عكسنا ده كان هيك حتى ولا سبريان لكن كذي دي كنا بلا على طابة هذا أنت تلفزيون وصفر يستلقون يا هذا ويا هذا وقت اللي في وقت عام لكن أمين بقيمة تذكر الجار ما هنا وحدي تذكر حتى ما جابه تذكر حتى في كبر السنين تذكر نقل كبيرنا هنا وكذا أنا بسافر السنة يوكيان نقل كيري يمكن أنا ما سكوين كار ولا تذكر كل ذنيا وتذكر لي هذي تذكر هذي اللي تونا في النهاية ما شاء الله. horta inaynu isfahmnaba fiican. neefintan sheegaya waxaan ku idhi qofka inaad adigu xiwaar la gasho, waxaan kaloo kuu raaciyay bil kitmaan inaad qariso. anu kuma odhan tv-ga intaad isugu yeedho maxaa diintu ka qabtaa dheh, laakiin waxaan rabnaa waxa weeyaan ilmahaad adigu dhashay mushkiladu ku dhacday saad ula dhaqmi lahayd baynu ka warramayna. kama warramayno waxaanu idhi isaga iyo qofka uu xiwaarku ka dhaxaynayana ha u qarsoonaataa ku idhi, kuma odhan dadka kale ha ogaadaan ama ha la faafiyo. mawduucan inaan halkan kaga hadlo waan diiday, waayo uma arko dadkani dad mushkiladan qaba inay yihiin. waa laga yaabaa meelo ka gedisan inaan hore kaga hadlay, laga yaaba youtube-ka haddaad gashay inaad hesho 5-6 cajiladooda waxaan ka hadlayo ka hadlay, laakiin waa dad gaara, waa dadkii waxaan qabay ee xanuunsanayay. dee haddaad wax xidhxidhi karaysaanna iskuma baynan soo dhowaanin dad badan baan marinaya. حياك الله حاج الله سدو حاج عبد الله. waxaan u malaynaya masaajidkiinan hore ugaga hadlay af soomaaliga iyo waxa ku saabsan oo tilmaamaya qofka soomaalinimadiisa inuu haysto. dhaqanka soomaaliga ee asligiina waa diin, waalidkan iyo waxa kan waxa keenay waa diin. qofku markuu muslim yahay diintiisa haysto ayuu dhaqan haystaa, laakiin haddaanay diin noqonin dhaqan cidina ma ixtiraamto. haddaanu diin ku baysgaraysnayn oo waxaan culture-ka la yidhaahdo waxyaabuu ciddii doontaa ha haysato, wuxuu ku baysgaraysan yahay waa ideology, waa diimaha dadku ay haystaan. haddaad diinta maydho waxa kale ma hayn kartid, sinaba uma hayn kartid. waa leenahay soomaaligiinii xejista, dadnimadiinii xejista, diintiinii xejista, intuba waa asal bay inoo wadayiin. waxaad moodaa waayadan dambe cilmaannimadu inay jeceshahay in dhaqanka iyo diinta la kala saaro, dhaqankana ay ka soo qaataan muusiga iyo digdigta. war xataa muusigu dhaqan soomaali ma aha. bigiladii ugu horreeye la tuma hindaa inoola timi, cuudkii ugu horreeye la garaaca cadan carabtii ka timi iyo soomaalidii la socota inoo keentay. inagu jaandheer bay ahayd, xataa haddaad dhaqan rabto waxaa la tumi jiray sacab iyo caga dhulka lagu garaaco, islaamaad durbaan yar gargaraacan jiray, ma jiro. xataa muusigoo dhamme dhaqan soomaali maaha, wuxuu doona ha noqdo. calaa kulli xaal dhaqan soomaaliyeed waxaan rumaysanay inuu diin yahay, diin wixii khilaafsan inaanu dhaqan u noqon karin. asalaamu calaykum. بارك الله فيك. ان شاء الله تعالى وقت صلاه ايامك تاجروا للجاري